okay muuqaalka marka waxa isla fiirineynaa ama slide kan waxaan ku wada arkaynaa noocyada beamska ee leeyahay iyadoo loo fiirinayo cross sectionkiisa cross sectionka waxaa la lahaa hadda beamkeenan tusaale ahaan beam ayaa meeshaan noo yaalo okay sidaan oo kale ayuu noqonayaa beamkeena okay so marka beamkan cross sectionkiisa hadda markaa fiiriso waa rectangle yacni waxa waaye cross sectionka waxaa la lahaa markii shayga la jaro okay tusaale ahaan beamkan hadda aniga hadda dhaho halkaan ka jara oo aan fiiriyo gudihiisa rectangle ay soo baxay saanu noqonaa cross sectionkiisa okay cross section marka waxaa la lahaa widthka iyo depthga marka la fiiriyo uu qaadanayo ayaa la lahaa so marka nooca ugu hore maxaa la marka rectangular beam waa beam noocan oo kale u yaalo okay sawirkiisa isla aragno nooc aad loo isticmaalo waa ku leeyahay okay waa kana ha rectangular beam okay rectangular beamka marka aad loo isticmaalo oo marka la joogo reinforced concrete building marka la joogo iyo structure-da kale so marka nooca labaadna maxaa la yiraahdaa waa T section beam sectionkiisa wuxuu yahay T yani tusaale ahaan T xarafka T oo kale ayuu u eg yahay okay oo halkan wuxuu ku leeyahay wuxuu u eg yahay shape-ka T xarafka T la dhahay ayuu shape-kiisa u eg yahay waxaana la isticmaalaa marka reinforced slab-ka si monolithic ah markii la wada shubayo so marka waxa isweydiinayna maxay ku kala duwan yihiin labadan rectangle yani markii laga hadlaayo waxay ku kala duwan yihiin tusaale ahaan hadda hal mar u laabano hal mar isla aragna marka balankan T beam iyo L beam oo nooca saddexaad ah iyo rectangle waxa waaye wax oo balaanada lagu dhex arki kara marka balankaada aa fiiriso sectionkiisa waa okay hadda meesha maxaa iga jira slab intana waxaa iga jira slab beam kan oo kale hadda soo qabto oo meeshan section ka jaro oo halkan ka soo fiiriyo aan dhaho beamka markaa jaro kadib dhinacan aan ka soo fiirino hadda dhaho waxa arkaa beamkan horta qaabkan waaye okay depthgiisaas waaye marka maxaa labada dhinac maxaa ka xigo slab ka xiga labada dhinac okay labada dhinac waxaa ka xigo slab so marka beamka noocaas oo kale ah ayaa waxaa la yiraahdaa T beam okay beamka marka shape-ka uu qaadana waa T sababtoo ah kan waa slab kanna waa slab okay so marka kan oo kale u imaado okay labadan ama kan ha ahaado ama kaas ha ahaado mid ka harta dheh su'aal ahaan kana saan u soo fiirina okay kana saan u jaraa okay kadibna waxa sameynaa sidaan ayaa u soo fiirina okay so marka maxaa arkaa marka dhinaca marka ka soo fiiriyo maxaa arkaa beamkayga horta depthgiisa waa kaasaha okay halkan slab ma ka jira marka halkan wax slab kama jiro laakiin inta slab jiro okay so marka muxuu noqonaa slab halkan dhinacan ka jiro okay so marka sidaas oo kale ayuu noqonaa hadhow marka xarafkan muxuu eg yahay L ayuu eg yahay so marka goormee T section iyo L section la arkaa waxa waaye noocyo kala duwan horta oo RCC beams jira marka la fiiriyo materialka so marka steelka iyo aad ugu badan yahay waana arki doonaa note-kan dambe ayaa ku arki doonaa so marka markii la wada shubo slabka markii la shubo waxa ognahay marka aan ku laabana meeshaan birte beamkeena biraha hoose halkaan ay yaaliin okay biraha hoose ay yaalaan waxaas ognahay biraha kore halkaan slabka ay soo galayaan oo slabka section ayuu leeyahay sectionkiisa iyo beamka qayb kamid ah ayaa isku dhex jiro waa isku dhex jiraan macnaha beamkeena hadda tusaale ahaan 400 oo kale inuu yahay laga yaabaa kan hadii 150 uu yahay okay 150 oo kale haduu yahay meeqa nooga dhiman marka 400 meeqa nooga dhiman waxaa nooga dhiman 250 okay 250 marka waa meeshan waa intaan waa 250 ah okay so marka 250 halkaan haday tahay okay beamkeena total marka muxuu noqonaa 400 noqonaa from here up to here laakiin marka saas ay tahay wali waa kala qaadan tahay slabkana 150 waaye 250 inta deep ah oo hoos u raaraxsanaa lahaa laakiin beamkeena depthgiisu dhan maxaa waaye waa 400 so marka biraha qaar halkaan ay soo gali doonaan okay waxaan ogtahay slabkeena xataa biraha qaar kamid in la dhex mari doono beamka so marka beamka noocaan oo kale oo saan isugu shubo waxa la lahaa T beam waxa isweydiinaya marka kormo rectangle noqonaa wuxuu rectangle noqonaa marka la wada shubin okay oo birahoodi iyo shubka hal mar ay soo wada dhicin oo isku shubneen tusaale ahaan slabka meeshaan noo yaal okay slabka meeshaan noo yaal meeshaana beamkiya noo yaal okay beamkiya marka gooni loo shubo maadaama uu wax support garan markuu qalalo uu adkaado kadib ayaa waxa la shubaa slabki so marka saas oo kale monolithic ma aha waxa isku hay jointig isku hay monolithic ma la dhigi karo hal mar lama wada shubin noocaas oo kale markuu yahay waxa leenahay beamkan waa rectangle okay so marka L section hadda faahfaahin badan noogama sii baano oo hadda yani waa hadda kii hadda soo sharaxno kale waa shape-kiisa macnaha wuxuu u yahay L okay qaabka L oo kale u yaala slabka ayaana la shubaa sida kii hore ku soo aragn marka note-ka yarka isla aragno hadda marka beamkana cross sectionka noqonayo marba material noqon kara mar RCC noqon kara waliba mid caadi loo shubay sida hadda u soo aragno kale
oo inta badan hadda anaga practically kaas tida ah la isticmaalaa okay oo waa la wada shubaa impossible waa inaa kala shubto macnaha slab iyo beam iyo aa kala shubto ma dhaceedo so marka ama precast ahaada asoo hore loo soo diyaariyey oo kale shub saan oo kale loo soo diyaariyo hadda ujeedi okay kan oo kale hadda t waaye okay l waa kan ahaa i waaye kan okay waa shub hadda kuwaan oo kale waa isku xira hadhow marka maxaa jiro steel oo steel structure marka la joogana sectiono kala duwan uu leeyahay oo wuxuu noqonaa i uu noqonaa l uu noqonaa t uu noqonaa h uu noqonaa c uu noqonaa iyo kuwo kale kala duwan sida square oo kale rectangle oo kale waxyaalahaas uu noqonaa okay so marka exampladaas marka waxaa kuu siinaa yani beamka nooc hore noqon karaa yani hadba qaabka iyo baahida ayay ku xiran tahay okay marka intaanu noocna in isla fahanna ayaa rajeynayna saaxiib